nin xerta kamid ah asagoo meeshaas jooga ayaa salaadii iga tagi rabtu yiri markaasaa sheekha tuko salaad uu yiri xamru jooga meeshuu ka ninkan ceel bur waay markaasaa inta carar sheekha warkiisa inta maqlay oo cararay wuxuu yiri salaadii tukado alxamdulillah sheekha salaadu xasuusiyo yiri eeg marka karaamada meesha ku jirta baleeg mar waxa weeye horta inuu nadar raxmaaniya weeyaan waxay qofka waa ilaalsanayaan waxay fiirinayaan xaaladda uu ku sugan yahay cibaadada asagoo ka fog ayaa salaadii la xasuusinayaa oo lagu amraya inuu tukado mar waxa weeye codkiisa ayuu wuxuu maqashiiyey asagoo xamar jooga qof ceel buur jooga ayuu codkiisii maqashiiyey inta la hadal yiri marna waa arkay inta arkay buu haddana la hadlay qof ceel buur jooga inta meesha ka arkay asagoo xamar jooga uuna la hadlay markaas uu ilaalinayo cibaadada soo ilaalinayo daliil u tahay sheekha Allah ka raadi noqday karaamaadkiisa waxa kamid ahaa waxyaabaha yaabka uu ku leeyahay qof ku xun wax xun soo sameeyay oo cisyaan hadduu u yimaado xalay iyo shalay iyo maalmo soo dhaafo hadduu u yimaado waxaas maxaa u samaysay ilaahay u toobadkeen dhihi jiray wixii uu sameeyay inta kala hadlo oo wuxuu ilaahay u toobadkeen maxaa u samaysay waxa dhacday maalmaha kamid ah gabar u timid gabar sheekha u timid gabadha waxay ahayd xogo ilmo raadis ahayd oo waxa ka soo daahday dhalmada iyo waxaas marka in sheekha ilaahay u baryo bay damciisay marka ay sheekha u timid arrintu sheegto wuxuu yiri habeenadaas ninkaaga oo guriga kugu yimid albaabka inta ka xiratay ma ka furi weyso ma cirisay sitira waa sameeyay hadii loo sheegay habeenkaas iyo waqtigaas waxaas ma samaysay waa sameeyay tireen kalaad ma jirtay moogta ilaahay ka boqoy ha u noqon arrinta dama sameeynin waxyaabaha khayrka ka xiraya oo ubadka iyo waxa rabtid oo raxmadda ilaahay ka hor istaagay cisyaanka noocaas oo kala way ilaahay u toobadkeen oo ilaahay u soo noqo annagana ilaahay ku baryayna markaas waana la aqbalaya laakiin ninkaaga maslaxa inta ilaahay ku toobadkeento ordo ninkaaga maslaxa ku yiri qofku yimaada xaaladda uu ku sugantay xaalad xun tahay horta markuu u horeyso waxa la waaninaya qofka waa la hagaajinaya kadib baa waxa la leeyahay wixii markaas uu yimid lagala hadlaya wixii uu yimid markaas dib lagala hadlaya Allah ka raadi noqday waxa dhacday maalmaha kamid ah sheekh yaramadkiisu wax la koobi kara maahan aad u badnaayeen wuxuu yiri nin darawal ahaa oo darawalada khaadimiinta kamid ahaa gaari raran oo uu number 50 meelahaas ka keenay oo qudaar ku raran oo mowdac u soo waday baa ka rogmaday gaariga gudoomay gaariga markuu gudoomay meel duur jidka bartkiisa soo maraya moogta meel dhax u maraya gaariga waa gudoomay wax kaalma iyo magaciisa malaha wuxuu markaa waxa go'aansan uu yiri inaa sheekha la qadaabo oo la hadlo meel inta jidka gees ka maraya wuxuu yiri sheekha waxa inuu yiri hadaad wali tahana awliyada ilaahay waxaan ma xiraane bahalkan toosi aan ku keenay hadaad wali ahayn hana lugoynin waa ka tagaynaa inuu yiri intaas markaa yiri waxa maqlo yiri wax biriq amoodid dhacay buu yiri gabow yiri markaasa inta soo baraarugan siri baawurka fiiro waaba taagan yahay waan raran yiri gaariga meesha jiifay waana raran yahay waana taagan yahay waa soo kaxistay kaasa gaariga keenay meesha keenay hawshaas ay qabanayaan waa la khidmaynayaan ardadooda mujida ajiib waxa kale oo yaab uu kula sheekheena xirtiisa ra kamid ahna muxuu ahaay ka sugnaaday asagana lagu arkay habeenada kamid ah asagoo khidmo ku jira iyadoo meel la joogo oo khidmo lagu jiro ayaa raggi khidmaynayay wax ilaahay un karaamo ka muujinaya ahayd raggi khidmaynaya waxa ka lumay hilbe karinayeen hilbii la karinayay marka bahal way dhaan oo inta lagu duro geedka weyn fuusta wax lagu karinayo marka digsiyada waa weyn bahal waxa jira lagu duro hilibka inta lagu suro looga soo saaro marka waa kulul yahay bahalka moogtahay marka bahalka ka lumay ay ku soo saariyeen markaas iska daba wareegayaan meeshii iska daba wareegay sheekhu marka xirta meelay kala joogan kuwaas uu tagaya waa soo noqonaya kuwan marka kuwana uu khatarsan moogta ku raashiga laga sugayay way waxana marka waa la soo daaheen wixii markaas wuxuu ku yiri maxaa ku dhacay markaas waxay yiraahdeen sheekhu waxa nagu dhacday waxa naga loo baalkay markaas wuxuu adigu mayna qaadiriye ahayn adigu qaadiriye rasmi ma hidin miya wuxuu yiri ma dhageysanina miya sheekhu weys wuxuu yiri waman bi dariiqi jilaani najaa min harri niiraani dariiqi jilaani qofkii mara kuleel naaryaal kuleelkood ilaahay waa ka najeeya
adinka marka qaadiri rasmi ma haydin miya seenaar kuleel dab uga baqaysiin yiri ma gacanta gelisiin waxaan masaajid gumi kara haddaa qaadiri rasmi tiin inta baxay marka wuxuu sameeyey gacanta inta la galay uu hilbihii gacantiisa uga soo saaray maraqii uu ku dhex jiray hilbihii gacantiisa uga soo saaray wax gubashay adaa sheegaysidba marka wuxuu aaminsan yahay dariiqa jilaani waa la garanayaa mogta dariiqa jilaani wuxuu ku dhisan yahay alkitaab wa sunna ilaahay subxaana wa tacaala in la raadigeliyo oo lagu raadigeliyo waxa asaga uu faray in lagu raadigeliyo in lagu caabudo sida ilaahay uu faray in loo caabudo dariiqa jilaani ku dhisan yahay mogta dariiqadana waxay ku dhisan tahay toddoba rugni waxay ku dhisan tahay kitaabka iyo sunnada waxay ku dhisan tahay in qalbiga wax laysku qaban oo qofka camalkiisa iyo wixiisa uu ku mashquulo ummadda ilaahayna uu nabadgeliyo waxay ku dhisan tahay markii lagu xadgudbo inuu samro oo uu iska dhaafo oo u cafiyo waxay ku dhisan tahay sakhaawa inuu muxuu ahaaye bixiyo oo wuxuu muxuu ahaay cilmiya ku dhisan tahay jahli ma aha waxay ku dhisan tahay ma garanaysaa ikhlaas iyo waxay ku dhisan tahay ilaahay loo baraxtira camalka baahi ilaahay subxaana wa tacaala loo qabo faqri ilahay la isku baahiyo inta kalena laga deeqtoon yahay ee dariiqada ku dhisan tahay sharciga in loo qiirooda oo ilahay sharcigiisa loo qiiroodo oo sharciga ilaahay addoon loo yahay ilahay subxana wa tacaala sharcigiisana si rasmi ah loogu hiliyo waxa kalena aan aado loo yeelin oo aan la fiirinin ayaa dariiqada jilaani ku dhisan tahay qofka hadduu saas sameeyo tatanazalu calayhim bilmalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu adduunyada intuu jooga aakhira intuu joogo taas loo gelaya sooma naar iyo kuleelka addunya akhira ku gumi mayso marka taasuu og yahay wuxuu yidhi jilaani sheekh uweys wuxuu yidhi waman bidariiqi jilaani jaa min xari niiraani kama fi lcahdi bayaani wajaa min nacuutillah qof jilaani waddadiisa dadkii maraan naar ilahay waa ka najeeyey maxaa marka uga baqaysa asuu dabkii inta baalkii gacanta geliyey oo waxa gubad iyo waxaas ma jiraan marka waxaa garanaysaa dadka ilaahay uu ka raadi yahay makhluuqay u arkaan khaaliqna khaaliqay u arkaan isagama darna makhluuq wax saameynaya inay leeyihin uma arko wuxuu u arkaa dabkan inuu yahay wax ilaahay subxaana wa tacaala uu sameeyey hadduu rabana gubidda uu ka qaadi karo hadduu rabana uu ku dayn karo ee asaga quwo uu leeyahay iyo dabci uu leeyahay ku gubi karinba saa darteed ka baqi maayo ilahay rumaysan yahay bes waa isku dhamaatayba ilaha iska leh alamru kulluhu lilah wax walba ilahay iska leh adigana addoona ilahay u tahay dabka addoonu ilahay u yahay si rasmi haddaa ilahay u rumaysid hawadaa ku ordaysaa dhulkaad muxuu ahay biyaha ku dhex soconaysaa dabkaad dhex maraysaa wax ku celinaya male maxaa yeelay kulluna biyaha iyo dabkii anaga lasu keenay makhluuq ilahay aan nahay bani aadamkana makhluuqa dhan waa loo sakhiray walaqad karamnaa bani aadama laakiin noqo bani aadam wixii loogu talagalay sameeya waxaana lakugu talagalay anaga waa naqaana kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanahuna cani lmunkari watu'minuuna billah in khayrka aan farno shartana aan ka nahyino dadka laakiin aan iska bilaawno ibda' binafsik annaga aan iska bilaawno haddaan taas samayno wixii lakugu talagalay oo ilaahay nagu sharfay ayaan helaynaa khayra ummatin aan nahay markaa makhluuq kale ka baqi maynaba haddiise annaga nafteenna aan ku mashquulno wixiina loo dirsaday waxaan ahayn oo hawl kale aan galno dabaana gubayo maahane jiracaana qaniinaya markaasaa dhimanayna oo nafta noo keenaya moogta waata hadda waxaan haysta dhibaatada ummadda caalamulislaam haysta iyo waxa ay soo mareen islaamka awoodda aragtay iyo quwada aragtay iyo sharafka aragtay lahaa saa caalamka u galay kuma gelin sida hadda anagu aan nahay sida hadda aan nahay kuma gelin caalamku wuxuu soo maray iyadoo